تعالى وبركاته إدران داوديال همير قصود جوكتان كسور وقع ورك التلفزيون عالمي قاه سويال تي في وهذا قناة توصل وتن حرمت السريع قضبضها ورك يجا ودور رونا waxa kamid xaaladii ugu dambeysay COVID-19 ee degmada Caabud Waaq oo kor u kacday iyo waliba anagoo warbixin kaga diyaarinay madaxda galmudug iyo dawlad deegaanka Soomaalida oo magaalada Wardheer ee caasimadda dawlad deegaanka ku kala saxiixday heshiis iskugu jira mid ganacsi iyo waliba mid amni waxaad kaloo daawad doontaan urur samafala oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug oo deeq gaarsiiyay deegaan hoostaga magaaladaasi hooyo Soomaaliyeed oo lixaadkeedu uusan dhamaystirnayn oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa dalbatay in bulshada Soomaaliyeed ay caawiso warbaahinta Sooyaal oo tagtay xeebta Jazeera ee magaalada Muqdisho ayadoona halkaasi warbixin ku saabsan dalxiiska iyo waliba horumarka ka jira halkaasi ka soo diyaarisay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan ee u diyaar garoow warka faahfaahsan markale isku soo laabasho wanaagsan daawadayaashan qiimaha loo haddii aynu ku bilowno madax ka socotay dawlad goboleedka Galmudug oo isku jirtay wasiirro iyo xubno kale ayaa waliba madax ka socotay dawlad deegaanka Soomaalida oo shir muddo laba cisho uga socday magaalada Wardheer ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa heshiis qodobo badan ka kooban waxay ku kala saxiixdeen magaaladaas Wardheer sida warbixinta warkan oo inoogu diyaariyay wariyaha Yuusuf Arte shir muddo laba cisho ka socday magaalada Wardheer ee dawlad deegaanka Soomaalida oo u dhaxeeyay wasiirro ka socday maamulka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka socotay dawlad deegaanka Soomaalida ayaa galankii dambe ee shalay lagu kala saxiixday heshiis ka kooban 6 qodob oo isugu jira amniga iyo ganacsiga ugu horreyn waxa goobta ka hadlay mas'uuliyiintii ka socotay dawlad deegaanka Soomaalida iyagoona ka hadlay muhiimadda uu leeyahay heshiiskan waxay noo ahayd laba cisho oo taariikhaysan oo ku taariikhaysan amni iyo iskaashi dhan walba la iska kaashanayo waxaan ku faraxsanahay in wadahadalkeennii socday labada cisho uu natiijo dhalay oo warmurtiyeed qurxoon oo wax ku ool noqda bulshadana anfaci doona labada dhinacba aan ka soo saaray kaliya waxaan istaagay inaan u mahadceliyo wafdiga ballaaran wasiir waayeel wasiir fiqi wasiir cabdilatiif wasiir cabdiweli taliye mahdi iyo saraakiisha kale ee ka socota Galmudug wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Waayeel iyo wasiirka ganacsiga oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay heshiiskani inaan soo gabagabeynayno socdaal laba maalmood qaatay oo ku joognay dawlad deegaanka Soomaalida oo nagu casuumay inaan ka wada hadalno hawlo muhiim u ah labada maamul waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweyntii waxaan la qabaa Cabdi Waayeel ma aanan dareemin inaan qurba joogno ama dhul naga baxsan waxaan ku hadlaynay luqadeennii waxaana dhex joognay ehelkeennii marka taasi waxay uga duwan tahay dhulalka kaloo la booqdo ama la tago taasi way uga duwan tahay ma aanan dareemin inaan meeshaan ka nimid iyo halka aan nimid ee waxba farqi u dhaxeeya magaaladaas intaas oo ehel aan ku leeyahay soo booqanay ilaa xalay hadeerta marka taasna waa ilaahay wuxuu ku manaystay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan runtii wada hadalkii labada casho qaatay oo looga hadlay arrimaha nabadgelyada iyo iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalahaba oo nagu soo gabagaboobay si wanaagsan oo guul ah iyo safgarad dhanka nabadgelyada oo runtii wasaaraddeeda si gaar ah u khuseysana waan ka mahad celinayaa saraakiishii iyo hoggaanka
in maaragtay si detail ah oo hoose oo faahfaahsan looga wada hadlay dhammaanna in maslaxadda dadka labada dal degan xuduuddaas dheer wadaaga si nabadgelyo ah walaaltinimo ah ay ku wada noolaadaan ballaaran labada deegaan oo hadda aan maanta halka ku joogno guud ahaan gaar ahaan shacbigeenna waxaan isleeyahay runtii ilaa halkaan markaan ka soo baxnay Cabudwaaq ilaa maanta waxaan la kulmaynay soo dhaweyn aad iyo aad u laxad badan walaaltinimo waxaan kale oo ka wada shaqaynaynay sidii wasiirku sheegay amniga dhammaan arrimihii aanu danaynaynay hadday yihiin amniga ganacsiga iyo wixii kale oo la hilmaamo sida tacliinta iyo wixii lamada waxaan kaloo xoogga saaraynay sidii loo xakameyn lahaa waxyaabaha mukhadaraadka iyo sidoo kale cudurkan dilaaga ah oo la yiraahdo COVID-19 waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay si mug leh dowlad deegaanka Soomaalidu inay uga soo qayb galeen xafladan waxa ka muuqda saraakiishii ciidamada kala duwanaa oo ilaa aag dheer ragii muxuu ahaa u qaabilsanaa dowlad deegaanka kan iyo dowladda federaalka Itoobiya labadaba in ay muxuu ahaa ilaa xuduudda ilaa halkaan intii ay nala joogaan shirarkanaga ay ka qayb galayeen waxa ka muuqata runtii shacbiga halkaan ugu nimid oo walaalaha ah iyo madaxdoodaba inay si aan kala har lahayn ugu soo dhaweeyeen waxa noo muuqata runtii hidideela aad iyo aad u xoog badan oo is leenahay markii hore way naga dahsoonayd wax badan kama aan ogeyn wax badan oo aan is leenahay maanta wax tarba inay leeyihiin aan filayno wixii hadda ka dambeeya marka waqtiga iyo kulankii ugu horeeyay inuu ahaa iyo qodobada la gaaray marka la fiiriyo waxa waay runtii wax weyn baa la qabtay waxaa la rabaa marka qodobadaas la gaaray fulintooda qolo walba oo mas'uuliyad baa ka ratimaysa mas'uuliyadaas marka waxa waaye qolo walba dhinaceedii inay guntiga dheesha isaga sii dhigto oo ay ka soo dhalaasho because tijaabadaas bay waxyaabaha kale oo dambana ku xirmi doonaan hadday qodobadaas hirgalaan waxay horudhac iyo gogash u xaarayaan waxyaabo ka waaweyn oo fara badan in maaragtay ii sheeg aan kala faa'iidno ugu dambeyntii wafdigii ka socday Galmudug ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Cabudwaaq habeennimadii xalay ahayd Yuusuf Cabdiraxmaan telefishinka Soyal TV magaalada Cabudwaaq waxa saacadii u dambeysay magaalada Cabudwaaq ka dhacay dhimasho badan oo uu sababay caabuqa coronavirus haddaba warbaahinta Soyal ayaa arrintaasi oo dhaba gashay sidoo kale waxay booqatay xarunta karantiinka sida warbixinta warkan ay noo soo diyaarisay wariyahayaga Deeqa Jaal xilli 48 saac ee u dambeysay magaalada Cabudwaaq dad badan ay ugu geeriyoodeen cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa telefishinka caalamiga ah ee Soyal TV waxa uu booqday xarunta cusub ee loo asteeyay karantiilka cudurka COVID-19 xaruntani oo agabka yaala ay ahaayeen kuwa aad u tiro yar ayaa waxa ay ka koobnaayeen 5 oxygen iyo 10 sariirood sida aynu ku soo aragnay taasi oo muujinaysa isdabool la'aanta dadka ku nool degmadan Cabudwaaq iyo agabka yaala oo ah mid aad u tiro yar haddaba madaxa caafimaadka oo aynu kula kulanay xarunta karantiilka ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladihii u dambeeyay ee cudurka halista ah COVID-19 iyo xaruntan agabka yaala TV-ga Soyal ee maanta lagu soo booqday xarunta karantiilka ee loo asteeyay degmada Cabudwaaq xaafadda Ammaano waad aragtaan baan u malaynayaa meesha waad aragteen inaad idin muuqdeen agabkii loogu talagalay dadka COVID-19 ka qaba mashiinadii waad aragteen sariirihii waad aragteen alaabta taallo kale waad aragteen intaas waa intii aan ugu talagalnay inaanu muxuu ahaa ku furno xaruntan markii aan kaga warramo baahida jirto oo halkan deegaanka ka jirta ama sida xanuunku bulshada u hayo hadda xaruntan waxay furan tahay oo aan alaabtan ku soo wadnay 3 bari ilaa 4 bari wali lama daafurin oo waxaan la sugaynaa wasiirka inuu noo daafuro inta aan la daafurin waxa ku dhimatay oo naloo keenay oo aan ku caawinaynay
laba qof dahaba xaashi oo u dambeysay baa saaka ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto xaqiiqadii waxaan bahda saxaafadda ha noqoto sooyaal ama ha noqoto saxaafadaha kale oo jira ama ha noqoto dadka waxgaradka ah xanuunkii caabudaaq waa ku jiraa dhimashadu aad bay u sareysaa 3 usbuuc oo ugu dambeysay oo hadda midkii shalayta u dambeeyay dhimashadu 38 qof bay maraysaa 38 qof baa dhimashadu maraysaa dadkaasi qaar waa dadka aan ka xaqiijinay ama xarunta karantiilka aan ku ogeyn inay xanuunka qabeen qaarna goobihii ay ku dhinteen baan ugu tagnay markii aan la xiriirnay dhaqaatiirtii ama dadkii ay la joogeen waxay noo cadeeyeen in naqasku dadkaasi wada hayay xumadiina haysay calaamadihii xanuunkii oo dhan ay noo cadeeyeen waxaan bulshada caabuda ugu baaqahayaa ama culumada ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama ardada jaamacadda ha noqoto ama ardada iskoolada ha noqoto ama qof kasta oo waxgarad ah xarunta koroonaha ee aan furnay agabkii loogu talagalay ama ku filnaa bulshada ma yaalo 5 mashiin baa noo taala 10 sariirood baa noo yaala kuma filna baahida caabuda iyo xanuunku sida dadka bulshada u hayo hal la istaago cid aan hadda wax ka sugayna oo wax noo keenaysa ma jirto ugu dambeyn kor u kacan ku yimid caabuqan halista ah ayaa waxa uu ku soo aadaya iyada oo dib loo furay goobihii waxbarashada taasi oo sababi karto in uu sii faafo caabuqani safmarka ah deeqa jaamac maxamed deeqa degan Soyaal TV magaalada Caabudwaaq ururka samafalka ah ee damqasho ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb iyo qaar ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa deeq gaarsiiyay deegaan 57 kiiloomitir u jira magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sida warbixinta warkan ay magaalada Dhuusamareeb inooga soo dhawriyahayaga Xamdi Diiriyani ururka dhalinyarada samafalayaasha ah ee ku midoobay damqasho oo ah urur ka kooban dhalinyaro iska kaashaday sida ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanada miyiga fog ah isla markaana ah urur ka shaqeeya dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada oo ay baahi weyn u qabaan dadka deegaanku ayaa adeeg caafimaad oo bilaash ah ka fuliyay deegaanka Gaaragoyle oo 57 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ku dhawaad 9 ruux oo isugu jira rag dumar iyo caruur ayaa ka faa'iideystay adeegan caafimaad oo ay bixiyeen ururka damqasho Farxiye Ciise Maxamuud oo ah gudoomiyaha ururka damqasho ayaa ka warantay xaaladaha dadka deegaanka ee goobta ay ku qaabileen ku dhawaad waxaan qabanay dad gaarayo 87 qofood waxay isugu jiraan rag iyo dumar iyo caruur dadka markii la fiirsho cabashadoodu aad ay u badan tahay waxyaabaha ay ka cabanayaan inta badan nafaqo darro iyo dhiig la'aan iyo xanuuno kale iska xanuuno chronic iska ah ama xanuuno waqti dheer soo jira isugu jiraan dadka deegaanka Gaaragoyle ee ka faa'iideystay adeegan ayaa dhalinyarada isxilqaantay ku amaanay doorka muuqda ay ka qaadanayaan si loo yareeyo baahiyaha daran ee deegaanka ka jira iyo sida ay uga warqabaan xaaladaha deegaanka dhinaca kale dadka deegaanku waxa ay dowlad goboleedka Galmudug ka codsadeen in wax laga qabto duruufaha nololeed ee ka jira deegaanka haba ugu sii liidatay dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga ururka damqasho oo maanta soo dooqday deegaanka Gaaragoyle dadka ku nool ummadda ku nool inay bal horta ogaadaan xaaladda ay ku sugan yihiin waxaa jirta warar badan oo iska jiro dadku qabo deegaamada aad u fog sida Gaaragoyle oo kale gobolka aad uga durugsan in ama nabadgelyadoodu xun tahay ama deegaankoodu fog yahay oo dhib badan wixii aada ay kala kulmayaan kulli intaba waa u soo dhabar adeegan ururka damqasho wayna ogaadeen wixii jira in nabadgelyo jirto oon dhib ka jirin in deegaanka dadka loo dul qaadan karona waaba munaasabo oo wadanku fog yahay in loo dul qaato wadada waxaan codsaynaa in la soo gaarsiiyo waxbarashada macallimiinta iyo aaladii wax lagu bara lahaay iyo deegaanka dhismihii wax lagu bara lahaay in la soo gaarsiiyo dhibka hadana meesha naga haysta waxa kamida biyo la'aan ka jirta oo iyo dhibaato kale ka jirta dadkii deegaankan hadda aan joogno
wax ceel uma qodna wax matoor oo loo arooro ma lahan dadkii dhib iyo shaqaaqooyin iyo waxba iska jira deegaanadii aan ka cabi jirnay dad daalimiinaha iska jooga carrada dulmiga dhex sameeyaya waa loo aroori waayey ceel kale nooma qodna ceeshan wax ka cabi jirnay dhib iyo waxba ka soo ka maray waa ku oomanahay meesha dhib badan aan ka jira waxbarasho haday tahay nolol haday tahay wax walba ay tahayba culays baa ka jira meeshan waxaan rabnaa marka dowladeena galmudug iyo dowladda dhexe inay wasaaradaha ay qusaydo xagga samafalka iyo xagga waxbarashada intaba iyo xagga amniga deegaankan xaq wuxuu leeyahay qof walba joogaaba inuu helo amni oo gurigiisa ku seexdo inuu helo gudoomiyaha degmada Gadoon Cabdinaasir Ciise Maxamuud Qoojo oo goobta ku sugnaa ayaa ururka damqasho uga mahad celiyay dadaalka iyo garab istaaga ay u muujinayaan shacabkooda waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinaynaa oo ugu xusuusan doonaa safar intaan ah waa safarkii koobaad oo kugu yimaado ururka damqashana ay noogu yimaadaan cidii koobaad oo ku timaada halkaan waxay noqotay oo ku guuleysatay ururka damqasho waxaan leenahay damqasho hambaliyaan leenahay inta kadib baahiyaha caafimaad oo laga sheekeeyay ma ahan baahi la soo koobi karo haday ahaan lahayd hooyada iyo dhalaanka haday ahaan lahayd mid guud oo bulshada dhan haysata waa baahi caafimaad oo aad u saa'ida waxbarashada sidoo kale waxbarashada laga helaa halkaani waa dugsi quran oo kali ah walow hadda macallimiinta dugsiga quran dhigay ay bilaabeen inay si iskooda ayagu haddana isku dayaan inay ardadii ay maadiga u bilaabaan oo Soomaaliga u bilaabaan iyo xisaabtii macallimiintu ay isku dayeen waxaan rajaynaynaa insha Allah bulshada inteeda kale inay damqasho ku daysadaan inta badan deegaanada ku hareeraysan caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaa ka jira baahiyo fara badan waxayna dhalinyarada samafalayaasha ahi isku xilqaabeen sidii ay wax uga qaban lahaayeen loona ogaan lahaa baahiyaha ay qabaan dadka deegaanku Xamdi Diiriye Cali Sooyaal TV Dhuusamareeb warbaahinta Sooyaal ayaa booqatay xeebta Jasiiro ee magaalada Muqdisho taas oo ay inta badan maalmaha fasaxa ay tagaan boqolaal kamid ah shacab weynaha magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaalida haddaba warbixinta warkaasi ku saabsan Jasiiro iyo sida loogu damaashado maalmaha fasaxa waxa ay looga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Naste Cabdisalaam Atani waa xeebta Jasiira waxay 30 kiiloomitir u jirtaa magaalada Muqdisho waxaana jooga dalxiisayaal ay ku weyn tahay jacaylka badooda dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waqtigooda ugu badan ku qaata halkan aniga iyo koox dhalinyaro saaxiibada ah ayaa safar ku tagnay shalay Jasiira Beach oo ah goob aad u qurux badan qaar kamid ah dhalinyarada soo damaashaadka xeebtan oo warbaahinta la hadlay ayaa soo bandhigay dareenkooda ku aadan farxadda Jimcaha iyo joogitaanka xeebta Jasiira aad iyo aad sida arkaysaan bulshada Soomaaliyeed magacaygu aniga waa Cabdiraxmaan Axmed Calasow soo dhawaada maanta waxaan idinku hambalyeeynaa in maanta ku raaxaysanayo xeebta Jasiira anigoo maanta aad iyo aad ugu qanacsan inaan xeebtaan aan ku raaxaysto waqti aan la qaato aniga familkayga caruurtayda inaan sida arkaysaan aan korno doonyahan badda sida arkaysaan ilmahayga maanta meeshaan igu qadeeyaan xeebtaana si amniya oo nabadgelyo ugu raaxaysto yani waxaan ku baaqaa bulshada Soomaaliyeed maadaama mudayac haddii aan naqatid amba xoogaa yani stress intuu ku gali lahay in oo enjoy ina raaxaysatid oo xeebta imaatid oo ilmaha soo wadiin la ismadaaliyo la baashaalo la raaxaysto sida arkaysaan marka wallahi aniga alxamdulillah maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan badda imaado ilmahayga ku raaxaystaan xaaskayga badda keeno ilmahayga badda keeno aniga badda ku raaxaysto ma sha Allah oo qabowsano waxaan u baaqaa marka bulshada in ayagana badahooda ay ku raaxaystaan xeebooda ay imaadaan ay soo banaan baxaan ay imaadaan magacaygu waa Cumar Cabdishukri xeeb Jasiira maan joognaa runtii waa xeeb aad iyo aad u qurux badan damaashaad aad iyo aad u wanaagsan leh amnigeedu wanaagsan yahay dhalinyarada Muqdisho 90% maalinta Jimcaha waxay yimaadaan xeebta Jasiira halkaas ku damaashaadaan sidoo kale waxaan u hambalyeeynayaa TV-ga caalamiga ah Sooyaal TV oo maanta nagu soo baqday xeebta Jasiira annagoo iska damaashaadina iska dabaalana halina waa mahadsantahay
aniga magacay Qadar Maxamed oo jooga maxalaha Badala Jazeera waxaan aad ugu faraxsanahay ina oo Soyaal TV iga wareysato jawiga oo maanta Jazeera waa meel aad u fiican amnigeedana fiican yahay waxa meesha ugu imaanay inaan dalxiisno oo jawi wacan iska qaadano magacaygu waa Shariif Cali Macalin Cabdi nolol yaqaano seerabta maanta Jazeera waxaan u imaaday inaan ku dalxiisto oo isbuucii wiigi aan shaqada iyo stresska ugu furnaa aan iskaga baabiino alxamdulillah kulli aad waan qabaystay waa ma sha Allah happy aan ahay bari shaqadeeda si wanaagsan ayaan u gali karaa insha Allah mid ka dhanka kale xeebta Jazeera oo ah goob aad u mashquul badan maalmaha Jimcaha ayaa maanta safarkeenu ahaa in aynu dhalinyarada weydiino oo raaxdooda ku aadan ahmiyadda ay u leedahay badeenu qaar ka mid ah dhalinyarada ayaana ICJ ka codsaday in ay cadaalad xugmiso dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya insha Allah mid kale waxaan raacinayaa badda Kenya ee naga haysato insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo hadii xataa maxkamadda Hague noo diido inaan luq tagno haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah maxkamadda Hague waxaan ka sugeynaa in ay maxaa la yiraahdaa cadaalad aan leenahay inay nasiiso aysan nooga eexan dariskeena oo maxaa la yiraahdaa cadawga koowaad magacaygu waa Maxamed Carab oo jooga maanta xeebta Jazeera aad baan ugu faraxsanahay badeeno aad u macaan badan dadkeedii oo soo dalxiis tagay ma sha Allah dhalinyarteedii oo maanta Jimcaha ay tahay oo la nasanayo insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan yani aadno hadda mar dhow Raskamboni oo nagu haysato Kenya inaan ka dhacsano badeena insha Allah sida maanta inta uu qabaysanayno ay isbuuc dambe ku qabaysan doona insha Allah Kenya badda ay nagu haysato insha Allah maxkamadda Hague waxaan ka Nasteex Cabdisalaam Barre Soyaal TV Muqdisho hooyaan lixdeeda la xad dhamaystirnay kuna nool magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubaland ayaa waxa ay dalbatay in caawinaad ay ummadda Soomaaliyeed soo gaarsiiyaan sida warbixinta warkaan oo magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Qadar Cabdiwaas Khadija Cabdi guriga hadingo bishaan ay ugu horeysay oo kaasa deganaa ilaa soo aska dhash oo bishii عارفة أن هنسي ترى إيمانة إلا صوم أكلوفر كاس وأكجري waa suurtagal markaad aragto muuqaalkani inuu dareenkaada qofnimo isbedeli doono waa hooyo Khadiijo Cabdi Xasan da'deedu waa ku dhawaad 70 jir ku nool gudaha magaalada Kismaayo hooyadani oo ah hooyaan lixaadkeedu dhamaystirnayn oo awoodin inay socoto ayaa gurgurasho ku soo martay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyadoo ay sheegtay in marka qaar ku dhacaan muruq maalatada ku xamaalato gaari gacanka nolosha hooyadani oo gurigani kali ku ah waa mid aad u adag xitaa duruufta haysata ayuu weliso gaajiye garab la'aan hooyo Khadiijo ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsatay inay soo caawiyaan Khadiijo Cabdi guriga hadingo bishaan ay ugu horeysay oo kaasa deganaa ilaa soom aska dhash oo bishii عارفة أم هنسي ترى إيمانة إلا صوم أكلوفر كاس وأكجري هذا كم بشي مولودة إمادي مولود guriyaal kala aan ku soo dhameystay ilaa bishii hadda aan soo moodno guriyaal kala aan ku soo dhameystay hadda kan waa ku cusube bishaan aan hor dhiibkeed aan iska dhiibi lacagta iska dhiibi iyo soon fur halahaasan jooga ani waxaan ka dalbanaa walaalaha Soomaaliyeed in ay gacanta igu qabtaan waa u jeedaa rafaadkan aan ku qaraabanaa tikadaha meelaha taaga ah gaari 10 goor maanta gaari gacan as isigi oo suuqa aan ka mareyno gaari gacan markastaba armaamad hadilin armaamad ka laaxda lile intaas ragna mi hor joogo cunug yaro isoo barbaar oo kastoo gacanta wax iigu qaban hayn ma hayst marka ani kaalmaan rabaa lii kaalmee gacanta liigu qabto aan rabaa aan hali soo caawi waa dhibeysanay tawar ma jirto عنو هذا واحد قعنتيس آد يوسق قبضتهم كنا صنع ما واجعله هذه وحلي وترى واجعله أنا ولا لكم في واب أدي موبايل نبر ما هيستا موبايل ما هيستا ولا عن كوتورة قفكم ولا لا بيديها ها واكن وهايستا واكن جلالو نص دولار هلك دولار ولا لا يسطورها هذا ولا لا Soomaaliyeed bisaas oo saas iyo kasiiran ay yeelan waajacale أنا halkan aan taaganahay waa hooyga iga degan tahay hooyo Khadiijo Cabdi Xasan gudaha magaalada Kismaayo hooyadani Soomaaliyeed oo aan lixaadkeedu dhameystirnayn ayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ka codsaday inay soo caawiyaan maadaama ay tahay qof curiyaan oo lixaadkeedu aan dhameystirnayn
hooyadani ayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ka rajeynayso inay soo caawiyaan. Khadar Cabdiwasaam Maxamed, Soyal TV, Kismaayo. guud ahaanba hadda wadayaal qodobkaas ayaa u dambeeyay war wixii dalka idaafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Sooyaal. warka waxay la socodsiinayay anigoo Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xalif. dhinaca kaamirada waa Deeqa Degan, dhinaca farsamada iyo isku dubbaridkuna waa Farxaan Anshax. intayna warkan warka ku kulmayno waa dhammaan bahda Sooyaal TV oo idin siyaasay nabadgelyo.